gudoomiyaha gobolka Sanaag Engineer Axmed Cismaan Xasan ayaa maanta xarunta maamulka gobolka kulan kula qaatay ururka haweenka ee Damal oo ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada ee gobolka Sanaag waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Engineer Axmed Cismaan Xasan. gobolkani waxay leeyihiin haween ka shaqeeya nabadeynta oo meesha dhibaato ka dhacdo iyagoo maryo cad sita kala dhaxgala meesha ay dhibaato ka jirto aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. waxaad u dadaaleysaan waxa weeye waa ilmihiina waxaad u dadaaleysaa waa walaalka wadada ka joog meesha inta badan wax laga soo abaabulay ee abaabulku ka soo dhacaana waa qoysaska hooyooyinku joogan waa halka haweenku joogan inanku halku ka soo baxaya ay dhibaatada geysanayay hooyo gurigeedu ka soo baxaya maxaan ku dhahay odaygu halku dhibaatada kala ka soo baxayana waa hooyo gurigeeda handana naxdinta halkay ku dambeynaysaa marka colaad timaade waa hooyadii ta ilmaheedu dhimanaya waa iyada odaygeedu dhimanaya waa iyada ta walaalkeed dhintaana iyadu buu noqdaa laba dib oo mar walba dhibta marka idinku dareenteen dhibti waxaan arkaya marka dareenteen dhibti inay idinku soo hooynayso ayaad fadhii kari weydeen oo aad u baxdeen inaad tidhaahdaan maxaan ku dhahay kala jooga aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa nabadgelyadaynu ka wada shaqaynaynaa horumar baynu u gudbi doonaa insha Allah idinka iyo inta idinka maqan iyo dhammaanba haweenweynaha gobolka Sanaag oo waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay ururka haweenka ee Damal oo gudoomiyaha uga mahad celiyay kulankan ay la qaateen iyagoona sheegay inay kala shaqeyn doonaan arrimaha nabadgelyada ee gobolka. dhankiisa taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag gaashaanle dhexe Saleebaan Ducaale Ubaxle ayaa dhankiisa ballan qaaday inay adkeyn doonaan ammaanka gobolka Sanaag. ummadani waxay ku jirtaa nabadda haday waxbarasho tahay haday caafimaad tahay haday tahay danyarteena haday tahay horumarka biyaha wax walka albaabka aynu garaacnaaba waxa laga horeysiinaya nabadii halka ma ka jirtaa waxaanu isu kaashanaynaa nabadgelyada gobolkan ka shaqeyno waana idin la shaqeynaa hadii la ka dhigo waxaan leenahay muddadii fara badan ee ka soo shaqeynayseena ilaahay khayr idinku siiyo diyaanahay odayga booliiska gobolka waxaan idin kula ballan qaadayaa qof iyo gaargaar bayna kala shaqeyn doonaan nabadgelyada bulshada gobolka Sanaagna waxaan leenahay cid kasta oo nabadgelyada ka shaqeynaysa hal isku dubtaago codka bariga Afrika Erigaabo.